بسم الله السلام عليكم ورحمة الله cashirkeenan waa midkii labaad ayaynu ku baraynay xirfadda graphic design-ka gaar ahaan barnaamijka Adobe Illustrator waxaynu ku baran doonaa cashirkeenan sida aad u abuuran lahayd document cusub waxaynu arkaynaa ilaa 3 hab oo aynu u abuuran karno project ama document cusub marka aynu gudagalno cashirkeena project cusub markaynu abuuranayno waxaynu maraynaa ilaa 3 hab aynu u abuuran karnaa documentkeena ama projectkeena cusub marka ugu horeysa halkan shaashadeena ugu horeysa markay naga soo horbaxdo oo reasonska iyo waxyaabihii dhawaanahan aynu sameynay ay ka soo muuqanayaan waxaynu dooran doonaa halkaas ay ku qoran tahay create new halkan laba shay ku yaala create new iyo open labadana way kala duwan yihiin marka create new waa marka aad file cusub hadda aad abuurayso open waan arki doonaa hadii la yiraahdo cashiradeena xigaan ku arki doonaa marka create new hadaan ku dhufano shaashad noocan oo kale ay noo soo bixi doonto oo aynu wax ka bedbedel ku sameyn doonaa marka intayna shaashadan guda gelin qaabkaas waa qaabka koowaad aynu document cusub abuuran karno inaynu halkaas aadno create aynu ku qorno marka qaabka labaad oo kale oo project cusub markaynu abuuranayno aynu sameynayno waxa weeye inaynu halkaas menu file intaan aadno kadibna new ku qorno qaabkaasna isla shaashadii oo kale ayuu ina siin doonaa marka aan ku laabano qaabka labaad ee aynu project u abuuran karno waa inaan file aadno kadib halkaas ay new ku qoran tahay aynu aadno kadib shaashada ay noo soo baxdo dialog box kan noo soo baxdo qaabka saddexaad oo aynu arki doono si aynu u sameyno project cusub waxaynu isticmaali doonaa shortcut mar walbana hawl walba la qabanayo waxay leedahay shortcutyaduna aad bay muhiim yihiin inaad isticmaalkooda aad la qabsatid marka shortcutka aynu isticmaalayno markaynu document cusub abuurano waxa weeye control+n haddaan dhahno isla waxay noo soo bixi doona dialog boxkii waa ujeedaa kii hore markii hore inoo soo baxayay labadii qaab hore aynu sameynaynay isla kii unbaa inoo soo baxay marka shortcutku waa qaabkaas oo kale control+n inaad keyboardkaaga tagto isla shaashadana kuu soo baxaysa marka waxoogaa shaashadan aynu fahanno halkan oo kale waxaa kaaga soo bixi doona recenska waxyaabihii dhawaanahan aad samaysay cabiradoodii ayaa halkan ku yaalla haddii laakiinse adigu aadan waxba hore u isticmaalin qaybtani halkan bannaan bay kuu noqon doontaa oo waxba ma arki doontid halkan oo kale iyadana waxaa kuu soo geli doonaa cabiro haddii jiraan aad safgaraysatay iyaguna halkan bay kuu soo geli doonaan preset ugu talagashay qaybtan oo kale waxaa inooga soo bixi doonaa saa ujeedo mobiladii cabirada mobiladii waxaas marka haddii aad qaybtan waxaad isticmaali doontaa cabirada ka dooran doonto haddii aad design gareyn rabto application ama mobile wax lagu isticmaalayo oo UI UX designka ama user interface-ka marka la naqshadaynayo ayaa qaybtan la isticmaali doonaa badanaa marka waa ujeedaa mobiladii halkan haddaad view all aad ku dhufato cabiradii oo dhan baa kuu soo bixi doona iPhone X, iPhone 8, iPad Pro qaybihii kale oo dhan Google Pixel dhammaan telefoonadii noocyadoodii kala duwanaa Samsung S8 dhammaantood halkan bay cabradooda ka arki doontaa halkan webka isaga sidoo kale waxaynu ka arkaynaa haddii website marka aad naqshadayn rabtid oo designkiisii halkan aynu iyadana aad kasoo dooran doontaa oo haddaad imka tusaale waa ujeedaa qaybahan oo dhan waxan website-yo way lagu design gareeyey barnaamijkan waad ku samayn kartaa kadibna waad u geyn kartaa qofkii developerka ee samaynayay halkan laakiin waa markii naqshada la samaynayo way qaabka u ekaan doono oo macnaha haddii website-ka naqshadiisii hore qofka horey loo soo naqshadeeyey qofka developerka samaynaya ee koodka qoraya marka loo geeyo waxoogaa waqti badan kama qaadanayso oo si dhib yar baa loo samayn karaa laakiinse haddii barnaamij aan naqshadaysnayn oo qofka developerka sameyn lagu yirahdo waxoogaa way kasii adkaanaysaa shaqadu intii hore marka iyadana sidoo kale haddaad u baahan tahay inaad website design garayso cabiradiisii halkan baad ka dooran doontaa oo kuugu caansan badanka ee la isticmaalana waa 1920 way marka halkan cabiradii website-ka iyo waxaasoo dhan baa kugu yaalaad ka dooran doontaa qaybtan oo kale printiga waxaa iyadaa ka dooran doontaa wax walboo la daawacayo waraaqadihii la daawacayay ama goor ha ahaado ama warqadihii noocyadooda kala duwan oo A40 hadday ahaato letterkii qaybahan Mareykanka ee laga isticmaala letter A40 iyo kuyogan A3 B4 waxyaabihii waraaqadihii noocay ay haayeen oo dhan baa xaggan ku jira marka waxyaabihii printiga galay way ama daawacaadda mareeyay halkan iyagana cabiradoodii ay kugu jiraan aad kasoo dooran doontaa halkan film and video-ga isaga waxaa ku jira waxyaabihii waxa laga yaabaa inaad isweydiiso muuqaalkan waxbaa lagu naqshadeeyaa video maxaa looga baahan yahay ayaad isweydiin kartaa marka video sababta loogu baahan yahay waxa weeye marka muuqaal la sameynayo kale waxaad aragtay YouTube tusaale kale badanaa markaynu cashiradan soo gelinayno waxaynu kor kusii qornaa thumbnailkaas marka waxaa lagu soo naqshadeeyey barnaamijka Illustrator-ka ama Photoshop midkood marka cabirkoodii halkan waa inaad ka doorataa marka isagana sidoo kale kaloo isticmaalo badanaa waa noocaas kale Full HD-ga waa 1920 way marka thumbnailka markaad naqshadayn rabto muuqaalkii maaha oo muuqaal lagu edit gareeyo laakiinse marka thumbnailka hore oo muuqaalka aan kamid ahayn marka la naqshadaynayo ayaad cabiradiisa sidoo kale xaggan iyada hadduu 4K yahay ama HD yahay ama 8K waxaasoo dhan waa ujeedaa noocyadii oo dhan ba halkan kugu yaala halkana marka iyadana cabirkooda aad kasoo dooran doonto
qaybtan oo kale art and illustration waxaa iyada la isticmaali doonaa badanka waxaa isticmaala qolyahan farshaxanka iyo sawir gacmeedyada sameeya kuwayagaas isticmaala iyagana sidoo kale meelahan bay kasoo dooran doonaan waxyaabahoodii marka waa ujeedaa cabiradoodii ay u baahneen fi wala dhaho halkan bay waxyaabihii oo dhani ay kaaga soo baxayaan ay isticmaali jireen warqaday wax ku naqshadeynayaan macnaha cabirkeeda iyo halkan kasoo dooran doona marka qaybahaasi waa cabirada kala duwan cabiradana sida caadiga waa badana waa cabir oo shaygan marka aad samaynaysid oo standard ah oo macnaha la naqshadeeyay oo international size ah oo cabirkiisa aad garanaysid sidoo kale meeshan ku jira saalo kale A4 hadaad wax ku naqshadeyn rabto A4 ta waxa weeye waa 297 mm oo balaca iyo 210 mm oo dhererka marka cabirkeeda inaad meel kale u raadiso uma baahna marka iyada hadii aad cabirada unit-ka aad bedelayso maahan marka cabiradan oo kale noocyadani waxa weeye waa present waa standard waa international size cabirkooda inaad raadiso uma baahnid kuwa kale iyaguna sidoo kale waxaa jira cabiro kale standard size laakiin halkan aan present ku ahayn oo barnaamijkan ku jira oo iyagana sidoo kale lagaaga baahan yahay marka inaad soo raadiso oo Google-ka ama meelaha aad ka soo baadho oo markaas aad saa ugu naqshadayso cabirada kale custom weeye oo cabiro oo custom oo markaas adigu markaas waxaad naqshadeynaysa laga soo dalbado cabirkiisa lagu sheego lagu yiraahdo inta iyo intaas baan u baahannahay inaad adigu markaas aad halkan ku qorto ayaa laga rabaa marka adigoo iska saxay unit-ka iyo marka waxaad isticmaalayso tusaale kale hadii lagu yiraahdo waxaan u baahannahay board inaad noo naqshadayso 4 mitir oo balaca iyo 2 mitir oo dherer halkan baad custom weeye oo Google kuma qorayso halkaas kama soo baaraysid halkan baad isticmaali doontaa marka cabirada ilaa 3 qaab u kale qaybsan yihiin marka hadaba qaybahaas markaynu soo aragnay halkan baynu hadana shaashadan yar baynu iyada sidoo kale qaybtan midigta xigta ayaa iyada marka la rabaa inaan buuxino waa hadii markaas cabirkani uu custom yahay way aad u baahan tahay ama cabirkani custom yahay waa international size laakiin halkan uu present ku aynu barnaamijka ku jirno meelaha aad ka soo helay labada qaab waxaa isticmaali doontaa halkan aad buuxin doontaa meesha marka meesha si aad u kala fahanno halkan oo horeyso kale documentigaaga marka aad naqshadeynayso magaciisa ku qori doontaa sababta kale marka hadii aynu naqshadeynayno board waxaan odhanaynaa banner halkan aynu banner ku qoraynaa bannerka marka magaciisa iyo waxaga adiga ku sii qoranaysid kadib marka halka aad magac ku qorto meesha oo kale waxa kaaga soo bixi doona cabirka shaygaas halkanna waa dhererkii shaygan aad naqshadeynayso dhererkii balaciisi iyo dhererkiisi halka marka intaadan cabir gelin intaadan tiro gelinin oo tusaale kale waxaad u baahan tahay inuu noqdo 2 mitir oo kale halkan waxaad rabtaa inuu noqdo mitir tusaale kale marka cabirkani adiga waxay u baahan tahay marka inuu ku noqdo board 2 mitir oo balaca iyo 1 mitir oo dhererka markaynu halkan aynu tagno waa u jeedaa halkan unitskii baa kaga soo bixi doona meeshan unitkii ama halbeegii markaas cabirka isticmaalayso qaybahan oo dhan baa ku jira kuwa ugu badan la isticmaalo waa centimeterka iyo meterka iyo pixelka incheska mararka qaarkiisa xataa la isticmaala aad baa loo isticmaalaa marka waa la isku bedeli karaa sidoo kale cabirada laftooda oo u jeedaa centimeterka oo kale marka meterka lagu bedelayo 100 centimeter 1 mitir bay la mid tahay marka qaabkaas la isku beddelay halka marka hadda su'aal waxaan u baahanahay mitir baynu rabnay oo saynu soo sheegnay cabirkeeni ay meesha gashay wuxuu ahaa marka mitir halkan ku jira barnaamijyadan qaybahan ugu dambeeyay hadda ku jira kuwa hore laakiin inaan keeni bal laga yaabo centimeter bar marka aad isticmaal doonto marka mitir markaynu ka dhigno hadda waxa dhaca u fiirso mitir markaynu ka dhigno cabirkeeni oo dhan wuu isbedelay wax kale noqdo hadda qaabkan uu weka cabirkeeni sax ah ma noqonayo marka halkaas inaad ka taxadarto isku day mar walba intaad cabirka shayga aad sameynayso meesha aadan gelinin halbeega ama unitka inaad ka soo saxayso oo mitir baad rabtay mitir markaas aad rabto halkan oo kale mitir ka soo dhigo kadib cabirka hada sax hada marka 2 mitir ka dhigna xagan halkan sidoo kale aan ka dhigno 1 mitir marka halkaas cabirkeeni hada boorkeeni sidaas uu noogu saxan yahay meeshan oo kale si aad ila fahanto halkan orientation waxa weeye waa shaygan aad naqshadeynayso chief baad rabtaa mise dheer istaag ana orientation hadii istaag aad rabto ka cabirkiin labadu isbedelaya dhinacuu u dheer yahay ayuu ka dhigayaa balac dhinacuu yar yahay marka qaabkaas uu cabirku ka badan uu weyn yahay oo salaadaan had kan ka dhigno wakaas dhinaca uu weyn yahay 2 mitir ka dhigaya hadii xagan kale dhinacuu badan yahay ka dhigaya 2 mitir oo dhererku u dheer yahay ka dhiganta hadda marka hadii laakiin ay isleeyihiin waa square oo tusaale kale waxa lagu yiri 2 mitir oo square ay waxay cabirkaas oo kale lagu yiri laftigeeda inaad si fiican u fahansantahay waxoogaa ayaa aad muhiim ah markaad u baahan tahay inaad noqoto qof graphic designer cabirada aad bay muhiim yihiin inaad kala fahansantahay board 2 mitir oo square ma lagu sameeyo 2 mitir oo square waxaa loola jeedaa balacna waa 2 mitir dhererkuna waa 2 mitir marka saas ku noqonaysa haddii marka hadda aan halkan orientation ka bedelayso dhahno waxba isma bedelayso sababta waxay tahay cabirkii hadda waa isku mid waxa waa square dhinac walba uu isleeyahay marka midkaad rabto waad ka dhigan kartaa hadii laakiin uu kala yar yahay sida hadda Kenya oo kale oo hore oo 1 mitir haduu ahaa halkan orientation waad bedeli kartaa marka adigoo u baahnaa
board 2 mitir oo balaca iyo mitir dherer haddii marka sidan oo kale hadaado qalab buu ka noqonaya oo wuxuu noqon doonaa boardkii qaabka uu soo bixi doono board balac ahaan 1 mitir dherer ahaan 2 mitir noqon doona marka orientationkaasi aad buu leeyahay inaad iska fiirsanayso wada markaad gudaha markaad gasho waad ka bedeli kartaa laakiin halkan hore inaad mar walba la qabsato laga rabaa inaad wax walba ka bedesho halkan oo kale artboardka waxay nooga soo bixi doonaa barnaamijkan saan hore u soo sheegnay casharkeennii koowaad aan ku soo sheegnay waxaa lagu naqshadeyn karaa pages badan waxyaabo ka kooban oo artboards buu leeyahay 1 page 2 page 3 page 4 page intaad rabtaad ka dhigan kartaa marka halkan aad ka badin doontaa walba waxaad u baahan tahay marka hal board haddaynu rabno hadda artboardska waxba inaan isku sii badino marna halkaasaan ka dhiganna marka badanka waxaad isticmaali doontaa waxyaabaha labada bog leh oo boga hore iyo front iyo back ama waxyaaba pages fara badan markaad naqshadeynayso ayaad halka artboards ka badan doontaa halkan oo kale advanced optionska iyada waxaa weeye markaad colorkan shaygan la daabacayo iyo inaan la daabacaynin labada shay baa ugu muhiimsan oo haddan RGB iyo CMYK baa ku jira iminka hadda calaamadda wuxuu ku soo qorayaa waa ujeedaa digniinta sababtu waxay tahay shaygani waa bannerkuna badanka waxyaabaha daabacadda gale la daabici kara weeye marka sidaa awgeed labadan kalar si aad u kala fahanto RGB waa red green blue saddexdaas weye waxaa loo isticmaalaa badanka waxyaabaha previewga ama shaashad uun kasoo muuqan doona la rabo in shaashad lagu fiirsado ama social media hata ama TV hata wax dooni hatee waxyaabaha shaashada kasoo muuqan doona ayaa loogu talagalay RGB color inuu ahaa laakiin haddaynu imika sidan ku saarno cabirkeenan maba taageerayo boardkeenan kalar saxa kuma soo bixi doona wax kalar walba aan ka dhigno kalarkiisii saxda ah markaa inagu xaggan markaynu naqshadeynayni aynu doorano kuma soo bixi doono marka qaarkoodna waad aragtay waxyaabaha qaarkood dadku markay daabacaan naqshadii ay soo baxdo daabacadu design-koodii uu soo baxo ama la daabaco inay waxba ay yidhahdaan sidan uma naqshadaynin oo si kaloo ahaa iyo marka sababta waxay tahay halkan bay kalarku ka qaldanaa marka halkan inaad iska bedesho isku day haddii waxan screening aad u baahan tahay inuu kasoo muuqdo RGB color guda kaasaa loogu talagalay marka hadda shayga maadaama banner cabirkeenu meeshan aan gashanay waxaynu ku dhaafi doonaa halkan CMYK inuu ahaato halkan oo kale iyadana waa quality-ga ama tayada marka shaygan aad daawacayso ayaad iyadana ka dooran doontaa marka 300 150 72 366 badanka 72 ugu yar waxyaabaha la isticmaalo screenka loo isticmaalo hadda marka mar walba waxaad isticmaashaa ood maskaxda ku haysaa cabirkan mar walba oo diyaar weynayso waa mar walba oo shaygan aad naqshadeynayso tayadiisu ay aad u sarreynayso dhanka kalena mar walba oo culayskiisu uu weynaanayo macnaha GB-ga ama maskaxda ama qaybta uu ka qaadanayo laptopkaaga ama computerkaaga aad bay u weynaan doontaa marka mar walba shaygan waxan mitirba haddii aad u yahay aad isticmaalayso mitirba hadduu yahay ama sentimeterba hadduu yahay mar walba waxaad isku daydaa inuu cabirkan yaraado oo 72 ugu badnaan meelahaas aad ka dhigto haddii kale waxoogaa culays inuu kuu keena laga yaabo marka midaasna mar walba ka taxadar intaa marka aynu sidaa usoo dhamayno wax walba cabirkeeni aynu kusoo qornayno intaa sida aynu wax walba usoo dooranay aynu soo hagaajisanay ayaa waxaynu odhan doonaa create markaynu dhahnaada cabirkeeni aynu soo dooranay waa ka qaabkan ugu soo muuqan doona waa board 2 mitir oo balaca iyo 1 mitir oo dherer ah marka qaabkaas aad dukumiinti cusub aad usoo abuuran doontaa oo aad isaga soo sixi doontaa marka aad abuurayso dukumiinti waxyaabaha lagaga baahan yahay marka cashirkeeni aynu ku baranayna qaabka dukumiinti cusub loo abuuro halkaas aynu ku ekeenaynaa khayr badan baan idiin rajeynayaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk